Somaliland waxa gacanteeda ka baxay saraakiisha ugu miisaanka cuslaa ee gobolka Sanaag kadib wada tashiyo ay yeesheen isimada siyaasiyiinta iyo haldoorka gobolka Sanaag. Yaasiin Cismaan Saalax Gurey oo ahaa taliyihii ciidanka Somaliland ee gobolka Sanaag iyo Maxamed Cabdi Xasan Maxamed Casi oo isna ahaa taliyihii ciidanka ilaalada xeebaha ee fadhigiisu ahaa magaalada Laasqoray ayaa labaduba iyaga iyo ciidankoodiiba ka baxay maamulka Somaliland kuna biiray dowlad goboleedka Puntland. waa tallaabo kale oo muujinaysa biseelka iyo fahanka dadka mandaqada Maakhir ee ku aadan damaca maamulka Somaliland ku doonayo inuu ku qabsado mandaqada Maakhir iyadoo la isticmaalayo aragtiyo guracan oo la iskaga horkeenayo dadka ku nool deegaanada oo qaarkood loo magacaabayo xilal beenaadyo la rabo in looga faa'iideysto dana siyaasadeed iyo ujeedooyin fog oo ka dhana midnimada iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed. markii ay saraakiisha iyo ciidamada Somaliland ee gobolka Sanaag ay fahmeen shirqoolka iyo dhagarta halista ah ee Somaliland la damacsan tahay deegaanada Maakhir oo ay ka baxeen maamulka Somaliland ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Badhan iyo magaalooyinka kale ee gobolka Sanaag waxay halka ka dhigeen dibadbaxyo ballaaran oo ay ku taageerayaan go'aanka geesinimada leh ee ciidamada iyo saraakiisha reer Sanaag. sidoo kale shacabka iyo ciidamada ayaa calankii Somaliland ka xayuubiyay xaruntii gobolka Sanaag ee Somaliland iyagoo ku bedelay calanka Puntland. Maxamed Cabdi Xasan Maxamed Casi taliyihii ciidamada ilaalada xeebaha ee magaalada Laasqoray iyo Gurey Cismaan Saalax taliyihii ciidanka Somaliland ee magaalada Badhan ayaa ka hadlay munaasabad loo qabtay saraakiisha iyo ciidamada soo wareegay. anigu waxaan ahay taliyihii degmada Laasqoray oo ciidanka ilaalada xeebaha maantana waxa weeye waad aragtaan waa ka wareegnay annaga iyo ciidankii militariga oo 117 waxa weeye isku mowqaf baanu nahay dalkayaga iyo dadkayaga waxaanu diyaar u nahay inaannu daafacno. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato, Puntland ha noolaato, warsangeli ha noolaado, cadowgoodu ha dhaco, dalka waa la difaacanayaa. haddaanu qaybsanayn maanta waxaanu nahay mid, waxaanu nahay unit, dalkayagaanu difaacanaynaa, diintayadaanu daacad u nahay, waxna waanan indhaa ka laaban doonin. ciddii naga maqanna ha nagu dayato, waxyaaba yaryarba iska jirjira qallooca allah inoo toosiyo, cadowgeenna allah ha qabto, Puntland ha guulaysato, Soomaaliya ha guulaysato, cadowgeennu ha dhaco. waxa weeye midnimadaa wax lagu noqdaa, qalbiga saalaxaa wax lagu noqdaa, isku xidhnaanshaha iyo dadweynaha wax lagu noqdaa. waxaan baaq u dirayaa cid kasta oo deegaanka warsangeli soo hunguraynaysa ama dhib ku wadda candhufada inay dib u laqdo. waa u soo dhimannay, waa u dhimanaynaa, waa difaacanaynaa. ninkii dalkiisa iyo dadkiisa garanaya iyo dhibta soo martay iyo tamaanta ka jira ninka ka hor yimaada innaga maaha. waxgaradka gobolka Sanaag oo iyagoo hore mowqif adag uga qaatay duulaanka Somaliland ee gobolka Sanaag ayaa si kal iyo laaba u soo dhaweeyay labada sarkaal iyo ciidamadooda. Gurey Cismaan Saalax, Yaasiin Cismaan Saalax aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Maxamed Casi waa soo dhaweynaynaa taliyaha xeebaha. waxaanu soo dhaweynaynaa xildhibaanada Puntland oo meesha fadhiya. waxaanu soo dhaweynaynaa saraakiishii hore oo odaga dhinacayga taagan dawladii noogama horreeyeen Cumar Cashuur, laakiin hadda waxa moodaa bahashu inay soo caga dhiganayso. diyaarad baynu saarnay inaan garanayne inay diyaaradii caga dhigatay oo kursigali oo dhan meel isu raacay. gudoomiyaha gobolka Sanaag ee Puntland Cali Xuseen Soomaali horena uu ahaa mas'uul go'aanada ka qaatay damaca Somaliland ee gobolka Sanaag isagoo iska casilay xilkii gudoomiyenimo ee gobolka ee uu hayay dhinaca Somaliland kadib amaro fool xun oo maamulka Somaliland duldhigay ciidamada gobolka Sanaag ayaa dhankiisa munaasabada ka hadlay. raxiim dadweynaha faraxsan ee dusha iska maraya ee aan niyadooda iyo dareenkooda kantarooli karayn waxaan leenahay waa mahadsantihiin. xafladii weynayd way noo harsanayd, saakaa way noo harsan tahay xafladii weynayd. insha allahu annagaa sheegayna, madax baa inoo imanaysa. afayeenka dowlad goboleedka Puntland Jaamac Yuusuf Jaamac Dabarani oo ka mid ahaa mas'uuliyiin gobolka ah oo dadaal dheer geliyay in aan dadka mandaqada Maakhir la isu adeegsan
iyo mas'uuliyiin kale ayaa iyana dhankooda hadallo kooban ka jeediyay munaasabadda. ma dhantiin soo ma dhamidin soo isku mid halkan soo sida ciidanka isku dhex galay isugu dhex jirtaan mise wala idigu dhex jira waayahay Allahu akbar waayahay midnimo Puntland Soomaaliya waayahay hambalyo iyo salaam waxa idiga wada madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani oo halkaan hawlaha u imay kamid tahay waxaan bogaadinaynaa ciidamada way soo aragnay waxaan rabnaa shacabkana inaan sida gaarka ah u leedahay xafladda ugu siino idinkana way idiga mahad celinaynaa garab istaagteen waa u jeednaa dareenkiina waxaanu soo qabanay hawsha ku faraxdeen oo muddo laga shaqaynayay waxaanu qabanaynaa xaflad weyn oo ballaaran halkii aad ogeydeen oo calankii suraa Soomaali kala goynayay calankii Puntland baa suran ciidankiina ciidan Puntland weeye waxaanu idiin soo maray magaalada u soo dhex maray inaanu idin tusno isdhexgalka guusha dhalatay iyo waxa isbeddelka muuqday xaflad baa la qabanayaa doorkiina leedihiin laakiin maanta waxa weeye calankaanu sugaynaa samada ka xidigaha mid la siiyo maalinta Cabdullaahi Suzaayiri sidoo yahay eegna sareeyo ma nusqaabe ka nasiibka nasar insha Allah saasoo loo ballana waxa muuqata inay Soomaaliland ku hungowday isku day walba oo ay ku doonaysay inay ku qabsato mandaqada Maakhir dadka reer Maakhirna ay meel uga soo wada jeesteen inay u midoobaan dhammaantood ujeedooyinka halista ku ah midnimada iyo wadajirka dadka iyo dalka Soomaaliyeed.